waxaan dunida ku soo biiray iyada oo calan tawxiid leh dhulkayga ka taagan yahay. dagaallo sanado socdayna ay ugu dambayn meesha ka saareen dowladdii quwadda weyneed, tii laga cabsan jiray ee dadku wada lahaa. deegaanadii aan ka soo jeedina ay ku dhawaaqeen dowlad iyo dal gaar ah oo ka go'ay Soomaaliyadii ay 60 la midoobeen. waxaan ku gardaabay kuna garaadsaday calanka 3 midab leh. waqtigaygii noloshana isaga ayaa dushayda ka babanayay. manaan arag calanka buluugga ah oo 30 sano ka hor halkan ku dhashay ka taagnaa. intaasna waxaan maqlayay magaalada Muqdisho oo ah caasimadii dalka oo dhan laga xukumay. waa layga sheekayn jiray muuqeedana dhalada uunba ka daawan jiray ee weligii cagaha ma dhigin hadda ka hor. saakase anoo nool ayay neecawdeedu igu dhacaysaa. xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa dadkana kor baan ka daawanaya. hoteelka aan deganahay ee Colow Tower qaybtiisa fiyuga oo ah meel aad si cajiib ah ugu leersanayso, magaaladana aad korka sare uga daawanayso, ayaan xilligan oo arooryo hore ah quraacdii aan gacanta ku soo ritay la soo fadhiistay. indhahaygu ma joogsanayaan jawigoo macaan dartii. waxay u mahanayaan daawashada magaalada. shaahii anoo gacanta ku sii takacay, indhahaygu kolba dacal ayay ku hakanayaan iyaga oo ka boganaya jawiga saaka iyo magaalada. waxaan diyaarinayaa muqdishada runta ah ee la dhiidigu dhacayso. waa been muqdishadii 30 sano sawirkeedii lay tusay. waa been muqdishadii laygu lahaa waa dekam kharaabada ah oo aan laysu gelin. waa been muqdishadii aan moodayey dadku hayb inay u kala darajo sarreeyaan. xamar tan runta ah miridhada horumarku xawaarahay jarayaan. waa xamar gadaalba aan jalleecayn, jaraynaysa oo ay u hillaacayso siday 30 sano kadib u noqon lahayd sidii 30 sano ka hor ay ahayd. xamartii zamaan caasimadii quwadda lahayd ee qaaradda u arrimi jirtay. libaaxii Afrika, xamartii iyada martida loo ahaa, duubabka geesku dubaaladda ka qaadan jiray. waxaan sheegayaa xamartii dunida cududda ciidan ku cabsiin jirtay. nasiib nololeed uma yeelan in aan dhex joogo xamartii 30 sano ka hor caasimadda u ahayd dalkii quwadda weynaa. waxaanse nasiib u helay inaan daalacdo xamar 30 sano kadib dadaalaysa, daaro dabaqba dabaq ka sarreeya dhisatay oo qaarkood daruuraha daris la noqday. waa xamar dadkeedu aanu ka xiiqayn, balse ay u xiiqsan yihiin sidii magaalo madaxdoodu u baacsan lahayd caasimadaha Afrikaanka, kuwa caalamka iyo kuwa carabta bineeyay daaraha dayaxa u dhowaaday. hadalkayga ficil aan kugu bedelo haddii muqdishadan runta ahi kaa daadegi laadahay. xamarta maanta 30 sano kadib ayay istaadiyumkeedii 30 sano ka hor siduu ahaa ka dhigtay, weliba ka sii naashnaashta. oo hadda kuwa casrigan ee caalamka ayay saamiyeen. bulshadaa kacday oo isxilqaantay. muddo yarna isxilqaan qof iyo itaalkii ah albaabada uga furtay istaadiyum aad kii caalamka moodo, habeenkiina siraadanaya. FIFA guddi u soo dirtay qiimayn ku sameeya. qalinkay ku doogeen in garoonkani la mid yahay kuwa caalamka ka dhisan. liiskay ku darsadeen oo maantaba muqdisho ciyaaraha FIFA sidhiga haysa. kooxuhu sida naadiyaasha adduunka ay ciyaaryahanada u kala iibsanayaan, heshiisyo u kala saxeexanayaan. taarabuunku waa camiran yahay, waa buux sacabka iyo fuudhidu waa wada socdaan sidii heer caalamina waa loo dheelaya. waa xamar haddana isxilqaantay oo tiyaatarkeedii albaabada u furtay, qalabaysay, oo waa beri dabadeed waa beri kale gacanta ku hayso. nasiib uma helin inaan noolaado tiyaatarkan oo dhisan oo ilmo mooge, ina Axmed, Magool iyo Xasan Aadan ay ka heesayaan. waxaanse nasiib u helay maanta iyo mar kale inaan dhex istaago
waa muqdisho mar kale maamustay oo muunadaysay shakhsiyaad maalmahoodii mahadhooyin sababay in iyaga oo meyti ah loo sameeyo taallooyin muuqooda lagu xasuusanayo ka tegay. Xaawo Taako sheekadeeda ilaa yaraantii waan ku garaadsaday, laakiin maantaan hoos istaaga iyada oo beerka waran ka taagan yahay. halgamaa iyada oo xanjeerku u xidhan yahay nafoor ah ay yahay. sayidkii seeftiisa laga cabsan jirina tagay taalladiisii oo arka intaan koonka jooga. waa ku dhif xataa dunida horumartay inay sidan muddo kooban shacabkooda ugu dhistaan dhismayaasha muraayadda u ah ama laga dheehan karo caasimadnimadooda. muqdisho inay caasimad tahay waxaa daliil u ah beerta sidan cagaarka u ah ee bulshadu u nasasho timaado. wax kasta ood u baahatana aad ka helayso. xeebta liidana lugahayga ku tegay oo dadku lilaahi ayay ugu damaashaadayeen. qofna qofkan kale kuma mashquulsana, wakhtigiisa ayuu farxad ku qaadanayaa. balan ma jirto oo nabad baa lagu dabaalanaya. saakana dadku waa adeeganaya, kumanaan baa isdhaafdhaafaya. qof walbana muraadkiisa ayuu qabsanayaa. alaabtu bannaanka ayay wadhan tahay. taasaana waa been ku odhanaysa xamartii laga sheekeynaya oo dahabkiiyo cascas ayaa dariiqa bannaanka lagu gadaya. cadceeddii way sii libdhaysa, godkay sii gelaysaa. xaalka xamarna waa kaa wacda ah. gabalkiinoo dhac mar kale muqdisho wataa muuqata siraadan baabuurtu ilaa dabada iswada taxanay hoonka yeedhinaysa. dadku way farxad caweynayaan. maankaagana marna kuma soo dhacayso muqdishadii aad maqlaysay ayaa muqdishadan siraadan ah. wax kale way wada iftiimaysaa. calashan waa horumarkii oo caawana nalka loo daaray. makhaayadaha laga qaxweeyo iyo kuwa lagu caweyskulmaba way camiran yihiin. markaasaad xamar laabta uga ducaynaysa. dadku ma kala dirno mana kala doorno. oo markii aan muqdisho soo gaadhay waxaan isweydiiyey talow ma Hargeysaa soo guurtay. sababtuna waxay tahay kumanaan haldoorkii dhallinyarada Somaliland waxaan isku aragnay muqdisho isagoo oo mid waliba Soomaalinimada rajacdo. arrintaas oo aan ka diyaarin doono barnaamij tusay taabsiya. xamar weyne waxay ku jirtaa suuqyada ugu waaweyn muqdisho ee wax laga iibsado laguna iibiyo. waxaa bartanka suuqa aan sheeda ka halacsaday calankii Somaliland oo xataa tawxiidka ku yaalo oo ka dhex babanaya calanka buluugga ah iyo calamo kale oo dhowr ah. wiilkii calamada iibinayay ayaan ka iibsaday calanka Somaliland. inkasta oo Somaliland qofka ku dhex qaata calanka buluugga ah intaan ciidanba soo gaadhin dadku gacan saarayaan, qofka xamar tagana la dayriyo, la caayo oo laga dhigo nin diinta ka baxay, cadowna cudud siinaya. haddana anigu dadkii ayaan la dhex qaaday anoo calankaygii saddexda midab lahaa midigta ku sita. cidna iguma qaylin, iguma dagaalin, iguma jirdiidin. xaasha layguma xidhin ee hawshayda ayaan sii wata. intaa iyo nolosha caadiga ah ee bulshada markaad tabiso dheehato muqdisho oo dhinac walba ka dhismaysa ayuu maankaaga isweydiinayaa meeday muqdishadii xaalka xun laga tabinayo. muqdisho oo 30 sano dagaal ka socdeen haddana horumarka intaa la gaadhay way mudan yihiin in shacabkeeda loogu hambaliyeeyo laguna daydo. way dhismaysaa, dadaalaysaa. dacal walbana daaraha iyo dabaqyadu way ka socdaan. mar kale way mudan yihiin in loogu duceeyo xamar mar kale inay deris la noqoto caasimadaha dunida. waxaan soo baahin doonaa barnaamij labaad
oo xamarta maanta ku saabsan kana hadlaya horumarka ganacsiga iyo heerarka bulshadu gaadhay oo ashqaraar kale ah